ولا يقدر ربما ضمان ربيعاويان يردوا يستاجوا ولا موضوع حي توصل سعدان أخيارها شغالها وبدنها مفردة ما دام يمكن بعد إنه شغال سعودي أو رغبتي أو سنة كوجيجا waxaan rabay qodobkaan rabay inaan yaro istaago waxa weeye aanan isku dayo inaan ka jawaabaa maxaynu u shaqaynaa maxaynu shaqada u tagnaa waxaynu u shaqaynaa si aynu dakhli u helno noloshayna ku maareyn markaa inta sabab intaa dhaafsan baa jirta hadday sababtu tahay un dhaqaalaynu ka helnaa meesha aan ku dabarno nolosheena dee waxaynu nahay un dad yaqaanaa isbak reality-ga adduunyada ka jira iyo qaabkaa usoo abuurantay industrialization oo raggii abayaasha ka ahaa kacdoonkii industrialization-ka Adam Smith ayaa fakaro cajiibi loo soo kordhiyey ay ka mid ahayd mass production iyo shaqada la qeexeeyo division of labor marka isaga berigaa waxaa waday oo riixayay oo motifkiisu ahaa aragti ah idaacadanku waa lensi sidaa darteed si uu wax u qabto waa in la abaalmariyo ama incentive la siiyo marka haddii aragtideenu tahay waxaan u shaqeeyaa shaqada u tagaa si aan lacag u helo traabkii dabankii yaalay baa aynu ku dhacday waxaa ka baxay markaa meesha qiimihii iyo ruuxdii ay lahayd inuu qofku wax u kaco ama u hodado inuu shaqo noocay doontaa aad qabto dareenka kusoo degdega maskaxdaada iyo damiirkaagu markay shaqo maskaxdaada timaadaba waxa weeyaan keliya dhaqaalaan ka shaqeeya haddii taa tahay questionkaaga waa simple marka waaliya waxyaabaha inuu shaqayno tahay inaan u shaqayno laga yaaba baahi iyo dhibaatooyin caqabado dhaqaalo jiro la kordhay dartood inay nagu dadajinaysa taa laakiin waxyaaba kaloo badan oo ku laran shaqadaada oo anigooda ateen la-aantood baa jira oo laga yaabo inaanan carabka ka sheegi karin laakiin aan isku yarada inaan noo macnayn inaynu shaqo tegno marka laga yimaado inaan dhaqaalo ka helno waxaad ka heshaa aqoonsi magaca iyo booskaa bulshada dhexdeeda ku leedahay wuxuu ka yimaadaa waxaad qabato waxa ku dheexo waxaad qabato waxaad ka helaysaa inaad shaqo tega ama qabashada waxaad qabatidi dhaqaalaha isagu wuxuu ku siiyaa aqoonsi aad dadka ku dhex joogto marka dadka dhexdiisa waxay ku joogtaa waxaad qabatay baana dheexo qofkaa tahay sabab waxaad tahay natiijada waxaad qabatay waxa kale lacag ahaydeed shaqadaada ka hesho waxaa ka mid ah inaad dareento qayb ka ahaanshaha dad kale bini aadamku waa social animal waxaad mar walba u baahan tahay oo kugu mudan dareen ah inaad dadka ka mid tahay in dadku kuleeyihiin dad aad leedahay inaad qayb ka tahay kooxdada ma noolaan kartid dad la-aanteed keligaa geed baxay ma tihin ilaahay baa sunnaha nolosha ka dhigay inaad dad ku dhex noolaatid dareenkaasa shaqada ku siisaa waxaa kaloo ku siisaa haddii lagu siiyo wax kastoo maadiyo shaqada aad ka hesho laakiin ama tusaalahaan haddii aad sida horaan ku noqono dhahdo waxaan u shaqeeyaa si aan lacag u helo ka waran haddii lacag lagu siiyo jiisa lahay dadka ku tumayna inay hanti haystaan including companigeena mulkiilihiisa weli way shaqeeyaan marka waxaa ku laran caafimaadkaaga iyo badqabkaaga baa ku laran sidoo kale waxaa ku laran dareenka ah inaad dareento in aad wax ku daraysid qulqulka nolosha ama aad qayb ka tahay isbedel nolosha dhexdeeda ka socda iyo curin nolosha dhexdeeda ka socoto xalwaa mujtamacaad ku dhex nooshahay mushkiladiisa waxaa kaloo ka mid ah karaamadaada ku xidhan inaad shaqo tagtidid waxay qoortaada suraysaa qof karaamo leh oo sharaf leh oo damiirkiisu durayo oo maaragtay isku filan marka shan shay lix shay oo kale oo lacag hay baan kuu sheegay oo shaqada aad ka hesho marka yaanaan ku dul taagnaa bay la tahay walaalayaal hal definitionka simbolka ah iyo taraabkii guud ee loo dhigay institutioniskan hadda dee ku shaqeyno iyo aragtiyihii qore ee ka dambeeyey ee aad shaqo tagsi aad lacag u hesho haddii equationkaa ku taayahay gurigaa ku rimaysid marka la eegayo kasbanofeedka ama psychology-ga saddex nooc bay dad u wajahaan waxa shaqo layla nooca koowaad waxa weeye inuu qofku dareemo mas-uuliyad uu isagu maamulayo waxyaabaha qofka jeclaysiiye shaqada approachka labaad maqaabkeedu ula falgalnay u wajahna shaqada waxa weeye in aad shaqada dhexdeeda ka heshid qabashadaa badan darteed inaad wax ku fiicnaatid particular skill baad maaragtay farshaxankeyga yeelanaysaa waad ku baasaanaysaa approachka saddexaad ugu muhiimsanayn
isleeyahay waa qayna inta badan aan ka dhex buuqan qaabkay u shaqeeyay aragtida shaqada ka haysana waxa weeye in ujeedo iyo qasdi kuugu waran shaqada uu jiro oo ka go-an dunida maadiga in purpose ay jirto halkaa waxay jira tusaale cajiib oo raba inaan idila wadaago naasa waa taqaanaan meesha lagu darso dalbalfariga maraykanka in xaaqeynka madaxweynayaasha maraykanka mid ka mid a ayaa booqday ninkan dadka xaaqa ka mida buu weydiiyey maxaad qabataa ninkan dadka iyo damiirka ugu laran shaqadiisa iyo beerkasu ka dhex arkaya jawaabtu bixiyey wuxuu yidhi waxaan qayb ka ahay howlgal loogu baxaya cirka waxaaqay wuxuu xaaqayaa meesha warkeeda adigaa kala weydinacaasaa qushii dee maxaan sameeyaa qushii iyo waxaan ku korsanaya qasdigeena iyo ujeedadeena iyo purpose-keena su-aalay saaran tahay waa shaqada waayo ku laran tahay ama aad ka dhexaadi kartid waxyaabaha qadari sida qalbigaaga ku weyn ee kula weyn adiga waa inaad ku lari kartid purpose waa inay jirtaa haddaanay jirin arrintaad usii wadaysid labaatan sano soddon sano cilmigaaga marka la qaybiyo saddex marka loo qaybiyo qayb ka midii waad huridaa oo hurdeed ku qaadanaa qayb kaloo ka mida waad shaqaysaa yacni saddex qaybood qayb ka mida ayaad si aan macno lahayn u jiraysaa purpose waa inay ka muuqataa waxaan ku gunaanadaya walaalayaal dadka qaar shaqada waxay u arkaan waxay jecel yihiin inay qabtaan they like what they do waa caadi oo kuma jirta dadka qaar waxay ka dhex arkaan shaqadooda career life ku gaabo noloshooda shaqo oo dhan tallaabo ka mid a ama step ka mid a oo wuxuu aaminsan qofku markuu soo kaco maanta waxaan u kacayaa waxaan tallaabo u qaadayaa ama meesha maanta ka shaqaynayaa waxay ii diyaarinaysaa tallaabada tan xigta ee career life-kayga waxaan dhisayaa nolol shaqo oo aan markaan weynaado dib markaan ku dareemo inaan koray oo qabtay wax macnale oo i qanciya markaa career life-kayga inay tallaabo ka mida tahay markaa si daacadaan u qabanaya si kalsoonidaan u qabanaya dadka qaarna waxay shaqada u arkaan qoolinkuma wuxuu ka dhex arkayaa nin waxyaabaha qadariyey intaan noolahay aan rabo inaan ka adduwaado ayay waxaan la xidhiidhaan dadka weli waan qabanaya waa sii joogaya nolosha inteeda ku noolahay laba shay baa muhiima waxna waa wax kaa hareero dhacayo aad arkayso ama aad maqlayso agtaada ka dhacaya waxna waa wax gudahaaga ka dhacaya waxa ugu muhiimsan intaad nooshahay aad arki doonto ama noloshaada midabayn doonaana waa waxa gudahaaga ka dhaca beedku markuu digaagadu ay gasho beedka haddii awood dibadda ka timiday lagu burburiyo u dhammaaday noolama jirto haddii awood gudaha beedka ka timida ay jelisana waxa ka soo baxaa digaag yar oo nolol cusub baa halkaa ka bilaabanta marka waxa gudahaaga ka soo bilaabayay waxaad qadarinaysiyo saaqado isku sharfaysiyo saaad isku dirayso iyo mas-uuliyaddaad sasiinayso saad iskula xisaabtamayso ayaa meel ku geynaysaa meel kuma geynayso presharka dibadda ka iman iyo ruliska iyo waajibaadkaaga kuberigu inaad u hoggaansanaato haddaad kaa u hoggaansanaato waad fiican tahay laakiin haddii aad akhlaaqiyan adigu isdirtood adigu naftaada la xisaabtanto aad isdiradaada ay noqoto waxaad maaragtay ku shaqaynayso xeerar kuu shaqayn mayso xeerarka iyagaa kuu shaqayn لكن واحد يقول على مسلسل الرصاص عشان كانت صوته في السطيرة يقول لك بدل ما نجح عليك وعمره يصدر ما عرفت شخص ما كمان بيقول لي الشيء ما عرفت شبيه في صوت بدنا أو مشاكل الأرض بدنا مركب شنط بشات وتعمل صوت بشات مركوبات وتعمل شنط مركب وتعمل وياه وبدي شوية على مشاكل يرى شفت الدكتور على مركب صوت عايزه واحد سوي ديزاين سؤالات maanta waxay u shaqo tagayaa maaha waxaan helayo waxay u shaqo tagayaa waxaan noqonayo shaqadana kama dhex eegayo waxaan ka helayo waxaan ka dhex eegayaa waxay iga dhigayso markaan shaqada dambeeyo ugu dambaynta dadaal walbaad samaysay intaad nooshahay walaal waxay ugu weyneed dadaal walba kadib heshaayo waa qofkaad noqotay baa ah qiimaha iyo jaysada ugu weynay nolosha ku siiso ما هو حاجة مركب صوتي لصوص عطوا حتى على الله صوك على الروح ورا يسا وحنا نقول يا وفق وفق عن فرصة شغلة لو حنو استعمال يعني عم تصوب بندقة كرتين اللي نفتنا وحن تصوب حياة ديرن وأنا نفتي لشرفي إن كمان إنت عم شرفي شغلة أنا استريا أنا حسابية وحي هي إجمالية أخلاقية بلاد سيد الصورة أنا حسابية أنا
أنا مسؤولية سسارية حيرة شوان كهرية وحي لا إيش شيء بقول كذا توماس يورس عليا because ما شرط إيش أنا أروح شرط فيها نفطيها and this is preparing me for my next big step in my career life.